السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الكسود هذا موضوع أينو كجا هذا دانو حالة جوريجا كريملين كلا يقانو أما قلعة عنك كريملين وأيكوت المامان دلال كريكر بيتكو قلعة دي أرجع حلاهيد وقلعة أي كصوب حنجو آمد الله ياب كله ودن كروشكو يجوبت أي الدنيا دو أردني سيجار أو إكتو مركل جسوا صاريو جو آمد خصي الدنيا جارهان حالة على حديدة أمنية وقت يدي قيصر ذي دل كروشكا إلا يوم دوجي سوفيتي قلعة كريملين waxay ahayd xarun saameyn ku leh xaaladaha adduunka ee siyaasadeed amni iyo istiraatiiji imankana waxa loo yaqaanaa qalcadii cabsida ee Putin ku soo dhawaada mowduuceena maanta waa goobta amarka ka soo baxa ay ku dhaqaaqaan kumanaan kun oo ciidamada dalka Ruushka ah bal hadii aanay ahayn malaayiin ciidamada dalka Ruushka ah waa goobta ay ka soo burqadaan go'aamada masiiriga ah ee la xiriira xaaladaha amniga sirdoonka iyo hawlgallada guud ee dalalka adduunka saameynta ku leh waxa laga xukumay wadanka Ruushka boqolaal sanadood marka laga tago xaaladahaasi aan soo sheegnay waxa lagu tilmaamaa in uu yahay dhismo la yaab leh marka laga hadlayo habka farshaxanimo ee loo dhisay gurigan Kremlinka loo yaqaano oo ay dadka Ruushku ku tilmaamaan fankii xadaarada Ruushka waa halkii uu dhawaan dhowr toddobaad ka hor kaga dhawaaqay madaxweyne Vladimir Putin hawlgalka military ee ka dhanka ah wadanka Ukraine waa weerarka weyn ee dhinac walba leh ee uu ku qaaday dalkaasi Ukraine waa goobta uu soo fadhiyay madaxweyne Putin ee ay kumanaanka shaashadaha adduunyada ahi tooska uga soo warinayeen muuqaalkiisa waa qalcadda iyo qasriga awoodda xukunka dalka Ruushka arrinta la yaab kale xiisaha leh waxay tahay in qasrigan uu hindisay markii ugu horeysay nin injineer ah oo ka soo jeeda deegaanka Kiev waa isla caasimada dalka Ukraine ee waqtigaasi ahayd dhulweynihii guud ee dalkaasi Ruushka miyaynu ku tilmaami karnaa dhisme caadi ah oo la mid ah dhismayaasha kale ee adduunyada maxayse mar walba xaruntani magaca ugu sareeya kaga jirtaa bayaanada iyo go'aamada iyo qaraaraadka ka soo baxa dalka Ruushka arrintaasi waa arrinta ka dhigaysa mid gabi ahaanba ka duwan dhismayaasha iyo qalcadaha kale ee adduunka waa Kremlin qalcadda argagaxa ee dalka Ruushka magaca Kremlin waxa uu luqadda Ruushka ku yahay qalcad ama dhismo weyn mahmaha dalka Ruushka ah ayaa waxay tiraahdaa Moscow ma jirto haddii aanu jirin Kremlin sidoo kale muuqaal guud oo qurux badan ma jiro oo samada ka soo muuqanaya haddii aanu jirin aqalka ama hoyga Kremlin waa mahmaha iyo xigmad dadka Ruushku ay leeyihiin sidoo kale mahmaha Ruushka ayaa waxay tiraahdaa cid ka sarreysa ma jirto Kremlin oo aan ahayn samadaasi buluuga ah waxay ahaan jirtay qalcadan Kremlin hoygii ay deganaan jireen qaysaradii wadanka Ruushka xukunkiisa soo hayay boqolaal sanadood markii dambena waxa uu noqday xarunta guud ee midowgii Sofiyeeti oo saameyn weyn dunida ku lahaa sanadkii 1991 markii uu burburay midowgii Sofiyeeti xukuumadda Ruushka waxay go'aan ku qaadatay in uu dhismahan Kremlin noqdo xarunta siyaasadda ee guud ee looga taliyo midowga dalka Russia waxaana laga dhigay xarunta guud ee uu degi doono madaxweynaha jamhuuriyadda midowga Ruushka waana magaca ilaa maanta ka dhigay in uu noqdo mid aad caan uga dhinaca warbaahinta baraha bulshada iyo guud ahaan dhammaanba wax soo saarka filimada ee laga sameeyo dalkaasi Ruushka oo mar walba magaciisa lagu soo qaato markasta oo ay muuqanayso muuqaalo laga diyaariyay magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka xarunta guud ee Kremlin waxa ku hareeraysan dhismayaal kale oo iyaguna waaweyn oo qurux badan oo ay dawladdu degan tahay kuwaasi oo ay ku yaalaan xafiisyo muhiim ah 800 oo sanadood ka hor goobta uu ku yaalo dhismaha Kremlinku waxay ahaan jirtay qiimo waaweyn oo cufan oo ay dhir waaweyn ka muuqato goobta uu ku yaala waxay ku taalaa bartamaha ama wadnaha magaalada Moscow sidoo kale waa goob fig ah ama laf ah oo lagu magacaabo Kofiski dhinaca koonfureed waxa ka mara webiga Movska dhinaca barina waxa kaga yaala dhismayaasha waaweyn ee kaniisadaha ah ee ay ka soo burqadaan wadaadada ama culimada diinta Orthodoxka iyo jidka loo yaqaano jidka cas dhinaca galbeedna waxa kaga tiirsan beerta weyn ee caanka ah ee lagu magacaabo beerta Alexander waxa ku hareeraysan dhismaha Kremlinka iyo agagaarkiisa dhismayaasha ka dhisanba dayr weyn oo caan ah kaasi oo dhererkiisu yahay ilaa 2 mayl dhererkiisa ama joogiisa sarena uu yahay ilaa 25 mitir waana dayr aad u weyn oo culus oo aad u adag qisada Kremlin waxa ay soo bilaabmaysaa sanadkii 1956 waqtigaasi oo ahaa markii uu amray Emir Yuri Grogi in la dhiso ama ay xukuumaddii waqtigaasi dhisto dayrka weyn ee magaalada Moscow kaasi oo waqtigaasi ku dhex yaalay dhismo yar oo ah halka uu imika ka dhisan yahay aqalka Kremlinku
1238 ayay ciidamo soo duulay burburiyeen kuwaasi oo ahaa Moqolkii duulimaadka culus ku soo qaaday dalka Ruushka sanadihii 1230 hase yeeshee waxa dib loo dhisay sanadkii 1339 waana waqtiga rasmiga ah ee loo bixiyay magaca Kremlin markii dib u dhiska lagu sameeyay dhismahaasina waxa uu noqonayaa waqtigaasi wadnaha looga arrimiyo dalka Russia iyo guud ahaan magaalada Moscow Kremlinka sidoo kale waxa dhex yaala dhismayaal kale oo ay ku duugan yihiin agab taariikheed iyo taalooyin aad u muhiim ah oo waqtiyo dhaadheer dalkaasi ka soo jiray dhismo kasta iyo taalo kasta oo ku dhex duugan qasriga weyn ee Kremlin waxa uu ka turjumayaa qayb taariikhda Ruushka ka mid ah horaantii qarnigii 19aad nolosha casriga ah ayaa waxay dalkaasi Ruushka ku hogaaminaysaa in isbedel lagu sameeyo qaybo kamid ah dhismayaashiisa oo dib u casriyeyn lagu sameeyay inkasta oo aan laga tagin hanaanka taariikheed ee ka muuqanayay dhismahaasi maadaama uu yahay mid taariikhiya halkaasi oo Nikolaygii koobaad uu amar ku bixiyay in halkaasi lagu kordhiyo dhismayaal kale oo aad iyo aad u qurux badan oo ka turjumaya taariikhda Ruushka kadibna la mariyay rinjiga gaarka ah ee ka muuqda Kremlin sidoo kale waxa waqtigaasi la dhisay qayb hotel ah oo ku dhex taala dhismahan Kremlin hotelkaasi oo loogu talagalay in madaxda soo marta Kremlinku ay wax ka cunaan iyo hool weyn oo kale oo ay ku yaalaan مخازن dhulka hoostiisa ah oo lagu diyaariyay hub casri ah waxaana lagu xarray sidoo kale astaanta Kremlinka iyo guud ahaan dalka Ruushka ee ah afarta gorgor ee iska soo horjeeda sidoo kale horaantii qarnigii 19aad waxaa lagu diyaariyay oo kale in lagu dul dhiso dhismayaasha Kremlinka xidigaha cascas ee shanta ah oo ah astaan kale oo kamid ah astaanta Ruushka kuwaasi oo laga sameeyay macdanta loo yaqaan yaaqut oo waqti kasta iftiimi karta habeen iyo maalinba ahna xidigaha cas ee wadwadaya dhismaha Kremlinka oo ku fadhiya dhulka baaxadda aan soo sheegnay leh waxa ku dhex yaala oo kale qayb loo yaqaano xaramka Kremlinka barxadiisa hore waxa ay noqotay tan iyo horaantii qarnigii 19aad goob la soo booqdo si kasta oo ay dhexdiisa ugu yaalaan xafiisyada muhiimka ah ee dawladda Ruushku haddana qaybo kamid ah maadaama ay yihiin goobo loogu talagalay taariikhda guunka ah ee Ruushka waxa ay noqonaysaa inay dad gaar ah soo booqdaan iyada oo mar walba amniga goobtaasi aad loo adkeeyo waana boqolaalkii sano ee kala dambeeyay ee taariikhda gurigaasi oo mar walba ahayd goob lagu tilmaansado qalbiga ama wadnaha magaalada Moscow iyo xadaaradda guunka ah ee Ruushka dhexdiisa waxa kale oo ku yaala hoolal shirarka loogu talagalay goobo madaxdu fadhiisato oo ay hore u fadhiisan jireen qaysaradii Ruushku kuwaasi oo lagu qurxiyay ama lagu sameeyay farshaxano lagu xardhay dahab waana goobo la yaab leh oo si weyn oo farsamaysan loo diyaariyay dhismihiisuna uu ka muuqdo farshaxan guun ah waxa kale oo ku dhex yaala dhismo kale oo u gaar ahaan jiray waaxihii sirdoonka ee waqtiyadii hore ee dalkaasi Ruushka inkasta oo markii dambe ee uu dhashay midowga Sofiyeeti waaxdii sirdoonka ee midowga Sofiyeeti ee loo yaqaanay KGB qaybtan laga dhex saaray oo ay dhismayaal kale iyadu lahayd haddana xafiiska gaarka ah ee madaxweynaha dalka Ruushku mar walba fariisto waxa lagu tilmaansadaa xafiiska ugu halista badan ee ku dhex yaala qasrigaasi marka laga hadlayo nidaamkiisa ilaalada goobaha la fadhiistay ee lagu shiro ee uu madaxda adduunka kula kulmo iyo arrimo kale barxadda hore ee laga galo qasriga Kremlin waxa ku yaala qaaco weyn oo lagu soo dhaweeyo marti sharafta kala duwan ee adduunyada waana halka madaxweynayaasha dalka Ruushka soo maray ay ku qabtaan xafladaha gaarka ah ee casho sharafta iyo qadooyinka marka loo diyaarinayo madaxda caalamka ee halkaasi soo booqda ama sidoo kale lagu qabsanayo xafladaha lagu maamuusayo geesiyada kala duwan ee dalka Ruushka waxa kale oo ku yaala qasriga Kremlinka madxaf weyn oo ay ku diyaarsan yihiin sawirro iyo agab taariikheed oo ka turjumaya xadaaradda guunka ah ee Ruushka muuqaalkiisa guud qof kasta oo u dhawaada webiga Moscow ee hareer mara waxa uu muuqanaysa dhismayaasha kala duwan ee uu ka kooban yahay Kremlinku tan iyo intii laga soo gaaray haddaba xukunka madaxweyne Vladimir Putin qasriga Kremlin waxa uu noqday oo waqtigan isku bedelay mid gaar ah marka laga hadlayo dhinacyada agabka ilaalada ee ku xidhan ciidamada gaarka ah ee aadka u la yaabka badan ee ku sugan goobtiisa iyada oo aan muuqaalkiisa guud laga dareemaynin wax dhaqdhaqaaq ciidan ah haddana xarumaha ay ku kala jiraan iyo goobaha ay ku kala sugan yihiin ilaalada Kremlinku waa kuwa aad iyo aad looga baqo oo cabsi badan waxa ku yaala goobo dadka lagu baadho goobo xataa sunta walxaha kimikaad ee lala soo geli karo si fiican u ogaan kara agabka dhinaca tiknoolajiyada ee kamaradaha ee ku xidhan ayaa iyaguna ah kuwa heer sare ah waxa kale oo xarumahan gaarka ah ku yaala xarun lagala socdo dhaqdhaqaaqa agagaarka Kremlinka
ilaa iyo 25 kilomitir oo isku wareeg ah, iyada oo dhinaca hawada iyo dhulkaba si weyn looga ilaaliyo. inkasta oo aan la ogeyn in ay tahay dacaayad ay reer galbeedku ka fidiyeen Kremlinka, waxaa jira qayb madaxweyne Vladimir Putin uu ku diyaarsado sida ay ku sheegeen kooxaha gaarka ah ee u tababaran sumaynta iyo soo afduubista dadka ka soo horjeeda madaxweyne Vladimir Putin, kuwaasi oo xarun kula Kremlinka, balse waa warbixin ay diyaarisay waaxda macluumaadka dibadda ee sirdoonka dalka Mareykanka ee CIA, iyada oo aan ognahay mar walba dagaalka dhinaca warbaahinta ama iclaamka ee u dhaxeeya Ruushyaanka iyo Ameerikaanka. haddana madaxweyne Vladimir Putin waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah madaxda ugu kaniga adag ama ugu maskaxda adag adduunyada, waana mid ka mid ah madaxweynayaasha gacanta birta ah ku qabta cid kasta oo ka soo horjeeda. lama yaqaano waqtiyada uu soo galo, goobaha uu seexdo, goobaha uu shirarka gaarka ah ku qabsado, iyada oo mar walba dhaqdhaqaaqiisa aan la ogeyn cid la socon karta oo aan isaga ahayn. waxa kale oo aan la ogeyn 13 xubnood oo ka mid ah mas-uuliyiinta Kremlinka ee isaga gaarka ah u qaabilsan iyo sida ay u shaqeeyaan, goobta ay degan yihiin, waxa ay qabtaan. waxaana mar walba aad looga taxadiraa oo ay dowladda Ruushku ka ilaalinaysaa in ay noqdaan bartilmaameedyo dibadeed, in la ogaado xogaha iyo nidaamka uu u shaqeeyo qasriga laga baqo ee Kremlin ama qalcadda argagaxa ee Kremlin. dowladihii kala dambeeyay ee dalalka Ingiriiska iyo Mareykanku mar walba waxay isku dayeen inay xogo dheeraad ah ka helaan iyaga oo adeegsanaya sirdoonadooda dibadda xaruntan gaarka ah ee Kremlin, balse mar walba waxaa soo baxayay sida ay ugu guuldaraystaan in ay xogo faahfaahsan ka helaan nidaamka Kremlin ama qalcadda argagaxa ee waqtigan fadhiyo madaxweyne Putin.